السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدح صورات أيان أدرى يا قف كست أو سحر لا دبن أنا قرن كرن الميش السحر كويمي أما السحر العريان سنة سرير لصارن أما مدفر بدن قرآن كجري أولي الفهم لا أما قرن لا ميش اللي مع ديبو صدح ذا صورات وصدح صورات معجزة صدح ذنا وتجربة ووحلة تجربية diinta waxay u kala baxdaa siyaabo fara badan marka laga hadlayo dhanka daliilka waxaa kamid ah waxyaalaha la tajribeeyay saa darteed tan waa tajriba wax la ogaaday oo aniga idin hadlayana aan ka ahay markhaatiyaal yaani ka ahay markhaati saddexda suuradood suurada koobaad waa suuratu zalzala ida zulzilat al-ardu zilzalaha suuratu zalzala waxay ka mid tahay suuradaha kashifa sixirka nooca uu yahaybo hadii lagu cabsiyay ama lagu cusiyay ama lagu daadiyay midka uu yahaybo ilaahay idinkii qofka ku sixiray way kashifaysaa qofkaasina ilaahay idinkii sixirkaasi ilaahay idinkii ku laaban doona waa suurada koobaad suurada labaad waa suuratu cabasa wa tawalla hadii yadana aad akhrido oo suuradaas yadana aad ku darto waxay ka mid tahay suuradaha qofka saaxirka ah dhulka dhiga cudurrada ku rida ilaahay idinkii sixirkana ku celiya suurada saddexaad oo shadaadiinta sixirka loo soo dhiibay jafaysa ama baalasha ka guraysa ama u diidaysa inay awood yeeshaan oo duulaan waa suuratu alam tara kayfa facala rabbuka biasxaabi alfiil suuradaas oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku baabi'iyo oo ku tirtiro oo ku jarjaro oo sidii asxaabilfiilka ilaahay ugu geli doono si ka daran shadaadiinta sixirka loo soo dhiibay markay xanuunsadaan oo ay kululaadaan waxay ku laabtaan qofkii soo diray waxay ku laabtaan qofka loo diray oo loo sixiray midaal haddii nin ama naag uu saaxir u tago oo yiraahdo hebel ii sixir oo hebel loo sixiro qofkaas sixirka loo sameeyay ku laabanayaan insha Allah tacaala waxaa ila joogtay maanweete hooyo Soomaaliyeed gabar aqoon leh ah waxay ugu tiri walaalow mar walbaan akhriyo cabasa ida zulzilad waxaa jira qof aan ka shakisanahay oo aan iga dheerayn hadda ka horna biyo isiisay ugu tiri biyahaasi ama hadii isiisay ugu tiri qof kale ma taaban karo adiga aan ka ahayn anigi waa cabay kadibna waxaan arkay aniga oo xanuunsan oo aad iyo aad u dhibaataysan isla markaana qofkaasna markastan suuradaha akhriyo uu xanuunsada sariir buu fuulaa qofku inuu sixiran yahayna maahan waxaa lagu gartaa marka uu arko qofkii sixiray oo dhibaataysan wuu ka naxaa shadaadiinta ku jirta ayaa qalbigiisa waxay ku abuuraan qofkan shadaadiinta ku jirta oo sixirka qofkaas wada waxay ku abuuraan qofkan u naxariiso qof muslima dilaysa waa kan kadibna qofku wuxuu bilaabaa inuu markuu arko qofka dhibaataysan oo dhibtii quraankii uu dhaafo adkaartii uu dhaafo sifo uu qofkan xanuunka uga kaco xanuunkana qofkan la sixray ugu ziyaado wad faanteen ma filaya qofka la sixray markuu ogaado qofka sixray ama la dareensiyo oo uu arko qofkii wuxuu sagu sameeyay midaal adkaar badan buu akhriyay quraan badan buu akhriyay dhikri badan buu akhriyay qofkii dhibaataysan khawf iyo walwal waxa lagu furaa qofkan saaxirka ah maxay ahayday jibanka sixirkiisa keenay oo qofkan kala geliyay waa qof walwal ku abuuraya saadarteed qofka mar walba sixran wuu cabsadaa wuxuuna ka baqa qofka sixirka ugu imaaday ha ka baqin aayadaha wad ilaahay idinka isaga dhaalima sixirkana ilaahay ku celin doona insha Allah tacaala saddexda suuradood kula wadaagi doona insha Allah tacaala ilaahayna qof kasta oo muslim oo dhibaataysan sixirka Allah kaga qaado wala la far badan gaarsii sixir kasta nooca uu yahay way furfuri doona waa baabiin doonaan qof kasta oo ku dulmeena dhulka korkiisa soo saaro iyagoo dhulka saaran ba ilaahay idinka kashifi doonaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.